leegadii markay xukunka qabatay ma ay lahayn barnaamij ay wado ay ku sii socoto ama ay ku fuliso danihii laga lahaa xurriyadda iyo israaca. waxaa dhacday in xisbi kasta oo la asaaso hadduusan lahayn barnaamij uu fuliyo marna meel ma gaari karo. barnaamijku waxa weeye waa waxa dadku ay isku raaci karayaan ama ay wax ku wada qabsan karayaan. barnaamij hadduu xisbi lahaynna xisbi ma aha. xisbiga leegadu wuxuu ahaa calamka in la taago, xurriyad in la qaato, dowlad in la dhiso. maxaa ka dambeeya waxba laguma muxaayay tashan. taasi waxay keentay in askartii ay iyaku dhiiro geliso ama geesinimo geliso in ay yidhaahaan xukunkan sivilka ah ama dimuqraadiga ah waxba ma qaban karo. saa daraaddeed waa in xukunkii lagala wareegaa. inqilaabkii ama kacaankii la sameeyey 21 Oktoobar ayaa ka dhashay marka wixii leegadu ay fulin kari weyday in uu fuliyo. waayahay kacaankana fahantiisu muxuu keenay? wuxuu keenay in horumarkii la rabay inuu sameeyo ay samayn kari weyday leegadii in uu ka gaabiyo. maxaa yeelay oo wax kale ay leegadu waxay samaysay mooye wax kale uusan meesha keenin. leegadii waxay samaysay aadam cabdulla cusmaan iyo cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed ibraahim xigaal iyo cabdirasaaq xaaji xuseen waxay sameeyeen ay ku dadaaleen intii ay meesha xukunka hayeen in ay dhisaan ciidamadii. waxay keeneen in ay warshadii hilibka sameeyaan. waxay keeneen in ay warshadii caanaha ay sameeyaan. markii kacaanku uu dhashayna ciidankii wuu jiray. ciidankii unbaa lasii ballaariyey. ciidankii waxaa laga dhigay ciidan weyn oo tayo leh oo dhinac kastaba ka dhisan. hase yeeshee dhinacii dhaqaalaha maxaa lagu kordhiyey? waxba. waa la dadaalay. crash program baa la sameeyey. waxaa la sameeyey muxuu ahaa iskooladii. waxaa la sameeyey jaamicado. waxaa la sameeyey muxuu ahaa iska wax u qabso. waxyaalo badan. barnaamijku waxa weeye waa barnaamij sida axsaabka caalamka lagu yaqaan 1 2 3 4 wax la yidhaah inay sameeyaan. marka hore maxaa dalka iyo dadka loo qabanayaa? dalka waxaa laga qabanayaa waxa weeye jidad loo sameeyo. waxaa laga qabanayaa maxaa la yidhaahdaa koronto in la geliyo. waxaa laga qabanayaa isbitaallo iyo sheebaaro in la dhiso. waxaa laga qabanayaa tacliinta in iskooladii iyo maxaa la yidhaahdaa jaamacadihii la furo. dadweynahana waxaa loo qabanayaa in tacliintii iyo aqoontii looga dhigo lacag la-aan. waxaa la qabanayaa in caafimaadkii dadka dhakhtaradii isbitaaladii oo dhan loo hagaajiyo. waxaa laga qabanayaa maxaa la oran jiray saboolnimada in laga saaro dadkii. saboolnimadu sidee baa looga saarayaa? dalku waa dal hodana. dalka wax kastaa ka baxa.